السلام عليكم أخيارتك وحنون قرش ميديا كسو دوادا برنامج كلا oo xiiso leh qof kasta ciduu doona ha noqdee waxa la bahuraana inuu fashil dhadhamiyo si uu ugu dambeyn u guuleysto waana wada adag oo soo wada mareen badan nolosha ku guuleystay dadka guuleystay heerkay gaadheen kuma aanay gaadhin wado wax ku fidsan yahay oo aan qodax lahayn sidoo kale waxaan shaki ku jirin in qof kasta oo guuleystay noloshana heer gaadhay uu soo maray maalmo qaraadh oo ku suntan guushiisa haddaba si aan wax badan uga fahamno si ay guuldarradu ku noqonayso wadada guusha loo maro waxaan soo qaadanay hadallo dhaxalgal ah oo laga hayo qaar ka mid ah dadka nolosha ku guuleystay adduunkana gaadhay meelo sare Trump Capt wuxuu noolaa intii u dhaxaysay 1924 ilaa 1964 waxaa qoraa Mareykan oo dhanka riwaayadaha wax ka qora iyo actor caan ah hadallada dhaxalgalka laga hayo waxa ka mid ah haddii aanu fashil jiri lahayn ma aanan ogaanin qiimaha ay guushu leedahay dhanka macaan ay guushu leedahay arkimays ilaa aad la daala dhacdo dhibaatada ay guuldarradu leedahay Colin Powell wasiirkii 16aad ee arrimaha dibadda dalka Mareykanka 2001 ilaa 2005 waxa qofkii ugu horeeyay Mareykan madow ah oo jagadan qabta hadallada dhaxalgalka laga hayo waxa ka mid ah guushu waxay ka dhalataa xirfad sareysa iyo dadaal dheeri ah fashilka wax laga barto daacadnimo iyo qooslaan guushu waxay leedahay tilmaamo badan waxay ku dhiiri gelinaysaa oo waxa aana ku dhiiri gelinaya isku daygaaga joogtada ah iyo hadba sidaad la dhacaysid guusha Bill Gates waa kan ugu hantida badan inta la og yahay dunida maanta waxaanu yiri way haboontahay inaan guulaha aan gaadhno u dabaaldegno laakiin taa waxa ka sii muhiimad badan inaan fahanno duruusta aynu ka barano fashilka ku dadaal inaad ku raaxaysto guushaada laakiin marnaba ha iloobin casharada muhiimka ah ee aan ka barano fashilka waa arinta kaliya ee guushaada aad ku ilaashan karto meesha ugu sareysana ku gaarsiin karto ugu dambeyn Thomas Edison waa aasaasaha leedka maanta dunida siraada waxaanu yiri anigu ma fashilmin ee waxaan helay kun wadiiqo oo ii shaqeyn weysay noqo qof si wanaagsan u fikira tijaabada ka fashilanta ma aha dhamaadka adduunka ee waxa meesha yaala waa in aad aragtay wado aan ku haboonayn in la qaado mar kale Michael Jordan waa ciyaaryahan caan ah oo dhanka kubadda koleyga ah aadna ugu caan baxay guulo aad u ballaaran waxaanu yiri inta aan xirfadayda sportsiga ku jiray waa khasaaray marar badan 9,000 oo isku day oo dhanka shabaqa ayaan la gafay 300 oo ciyaarood oo guul dareyna gaadhayna waan jabnay 29 jeer oo aan guusha aan sisinina waana laga adkaaday marar badan ayaan fashilmay sidaa darteed ugu dambeyn waan guuleystay ma jiro qof nolosha ku guuleysto aan marar badan soo fashilmin farqiga qofka guuleystay iyo dadka kale u dhaxeeya waa in uu isku dayga uu si wado halka dadka kale ay isku dayga joojiyaan Eden Wayland waa saynisyahan Mareykan oo noolaa May 1909 ilaa March 1991 waxaanu inaad fashilka ka baqataa waxay hoos dhigaysaa awoodaada haddaba inaad guul darrada qaadato aad wax ka barataa waxaad ogaataa inay ka dhigayso qof hal abuur leh oo inuu guul gaadho ay fudud tahay Frederick Skinner wuxuu ahaa filosof Mareykan ah oo cilmiga psychology-ga ka dhigi jiray jaamacadda Harvard waxaanu yiri fashilku markasta khalad maaha waa waxa ugu habboon aad ku sameyn karto duruuf gooni ah fashilka dhabte waa inaad isku dayga ka joogsato kuma khasbanid inaad noqoto qof dhameystiran waxa si muhiim ah inaad isku dayga la timaado duruuftu si kastoo ha xumaatee marnaba ha isku dayga ha joojinin Moriha Ushiba waa artist reer Japan waxaana kamid ahaa hadaladiisii guubaabinta fashilku waa furaha guusha khalad kasta waxbaan ka baranaynaa guul lama gaari karo iyadoo aan la marin tijaabooyin fashila oo wax laga barto waana mabda guud oo ku abuuran aadanaha laakiin waxaan ku ilownaa duruufaha jira Winston Churchill wuxuu ahaa qoraa sarkaal ciidan iyo waliba ra'iisul wasaarihii dalka England ee dagaalkii labaad adduunka wuxuuna noolaa November 874 ilaa 24 January 1965 waxaana kamid ahaa hadaladiisii guubaabinta guusha ka hor waa inaad guul darooyin istaba joog la kulanto adigoon dadaalkaaga marnaba ka gaabin haddii aad la kulmayso guul darooyin istaba jooga welina aad isku daygii wado taas ayaaba ah guusha la sheegayo ugu dambeyn waxa jira dad badan oo aan ogeyn in guul darradu ay tahay wadada loo maro guusha marka aad si akhrido xigmadaha sare waxa habaala in ay wax iska bedeli doonaan aragtidaada dhanka guul darrada ah dariiqada guushu waa ay kala duwan yihiin balse dadka guulaha gaadhay waxa ay ka siman yihiin inay la kulmaan maalmo qaraadh oo qalbiyadooda gilgilay
haddaba haddii aad mar fashilanto mar labaad fashilanto mar saddexaad fashilanto ha moodin in aad nolosha ka dhacday balse waxaa tahay qof dadaaluga جند الله